الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. waxaan u malaynayaa waxa uu ugu dhib badan qofku inuu naftiisa ka sheekeeyo nin shujaac ah oo geesi ah oo sida akhuna jiro kale umba arinta ku fiicnaan lahaa oo xaqiiqadiisa ka warramay ilaahay subhanahu wa ta'ala hidaayadii iyo hanuunka uu siiyay Allah u kordhiyo ilaahay baan u baryaynaa horto in ilaahay ku sugo ducadii uu dalbay baan ilaahay u dalbayna u weydiinaynaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu gaarsiiyo والدي رحمة الله عليه أباي شيخ علي صوفي وحو مركي وفاده هل كانوا هرتو كل انتي وهل كانوا كو اسيي والوالد رحمة الله عليه ماشان كو اسيي لكن حنون وحو كب اللوضي حنون ملينا يا سيدتي صدح دي مالها سيحيد مرة نو أن أرضيك أها مصر بان يعني يكب اللوضي waxaan inta uga gol leeyahay sanadkaas ka hor ee uu xanuunku qabtay ee uu dhacay ee jalda ku yar furantay طالب العلم buu ahaa mishaan hadda culimo iyo fulaan iyo leeyahay buu galaan jiray marka qaarkiis marka uu darsiga inoo akhrinayo wuxuu jahliga dadka ayaa wax naga dhigay mooyee inaan wax sheegna ma baaboor jiray waxaan xusuustaa دور يسقاشن جر تقريبا وقت أن قياسي أو كتاب كشاطبي أو كن بقول دور يطبعة بعيدة وإنتو حفظي ولي بوكرك كقبتي وهذا أنا كوع العلن جري ما لك ساخري جرون جري والدأب عن نقض هذا أنا كوع العلن ومركا وحن كوذا وأرنتا وشيء بان دبتاجنا يا أخونا عبد الرزاق إنه طلب العلم والقرآن كجعيل كيسا ودبتها إلى أمانة شيء إلهي القاضي أنا قوة الدوناي توفيق الله نوفجي أنا مقعيقة عبد الرشيد بالليلة الوالد مقعي شو مجرد أنا علي بالليلة علي ولكن طبعا لقب كمركز دنبه وشيخ علي صوفي نوالي يا شيخ علي صوفي هدي هذا وحن كبقى يعني أردت سبد شوي أنا تاريخ الوالد كعضون تيدي إيش كداية لكن وإيش كفعنا الله هيدو إن بدنا دتك ويديا إذن كوا بيش لفهمينا يقولوا إنك عربها قار كودية نودن على سعودي ومركز سيق لينو أنت صوفي يا صوفي وحاسي شيء إيش صوفي ذا سي ويديا ما لقب ما قبيل با ما فلان با وحاسي ويديا الصوفي يقولوا لي لأنه وبيش كجران با مش هتاسمر كلام كدقنا تقريبا isaga waalidkan ii sheegay oo noo sheegay sababta suufi loogu bixiyay iyadoo kooban isagoo arday ah xamar ardadu markay yimaadaan bari hore laga hadlaya ardadu waa la jili jiray guriga la geyn jiray guriga marka la geeyo gurigaas ay cuntada ka cunaan kutubtana culimada ka akhristaan laba caalim ugu waaweyn oo sheekh aadan awliyahan sheekhu mashhuur ku noqday oo tafsiirka akhriyi jiray iyo sheekh Abu Bakar muallim mukarram oo isagu ahaa faqiih ahaa labadaasa ugu baariz ahayd culimada inta kutubta laga akhrisan jiray marka sheekh aadan baa si khaas ah wuxuu uga warhayn jiray ardada oo isaga ku jili jiray oo meelaha ka jiray marka alwaalid rahmatullah alayhi markuu shabaabka ahaa jidba xoog la gashay oo dhaakir badan buu ahaa isagoo cilmigii baranaya ayaa haddana waraciisii aad iyo aad badnay marka waxaa dhacday guri markii la geeyay hadiiba naag indhahay ku dhacdo dib ugu noqon maayo saddex cisho afar cishaan iska gaajoonaya kadib baa sheekhi loo sheegaya wadaadkii cali ahaa gurigii ma tegin maxaa yeelay inaagu baa saa isoo hormaraysa buu maalintii dambu masaajidka istaagay waa meesha ay suufi dhalatay wuxuu yidhi sheekh aadan wuxuu yidhi afar xamar bay ku adnay reer xamar bay aayeen ayaa loo duceeyaa ninkan wadaadkan oo xerowgan cali suufi waaye cali suufi waaye guri bilcaan joogta haddii si arkom ma tegaayo يا لدعية قولي بالعنجوغين قينايا مركا دقبا استاغو يري أنا يا كحينايا وقولي قينايا قولي بالعن واجوك لكن ما أركايو سيدي با إلهي يقول نعمي يقولوا قولي مركا انتاغو سيقا إسرعنا وحما وضعنا دار بسوجوغينا عنتظر ماشا اللي يدقى هلك سيدي ما كل النار سوفي وبيقاهر ويدي بول سو شيخي مولبو سوفي علي صوفي سانو هابان عرب تجي علي سومالي بيسو بدشي هل كان شك قبو حانيقو
waxaan ku dhashay magaalo Harar Leyla oo Etoobiyadaas oo kan baan u malaynayaa halkaas waalidkii madrasadii uu ka hayay halkaasaan ku dhashay anoo taqriiban hal sano jira ayaa liigu yiri baa liiga soo kaxay markaa ma xusuusto anigu sanadka waqtiga aan dhashay sida hadda baasaboorka igu qoranna waad la socotaan Soomaalideena badi waxa weeye 11 Soma bisha koobaad maalintii koobaad u baanaay ma gastay taas waa ka seejin Soomaalidu taa la mid ah waayahay laakiin waxa baasaboorka igu qoran 62 haddaan is yareeyana dadka waxaan ku idhaa inta badan sidii la ii sheegay 64 baad dhalatay baa la igu yidhaa laakiin markii aan baasaboorkii qaadanaynay xogay waa la isweynayn jiray dibadda markii loo baxay baasaboorkii la suma ogal marka ala kulli xaal kan oo baasaboorka aan isaga dayno 162 kow marka ma qaad doctor Ali hadaynu iga yaraan doon malaynaya marka sadii saas tahay laakiin xaqiiqada hadii loo soo dhaadhaca ma المهم waa iska soo soconayo meesha hadda aan ku aqliyeystay ee waxoogay aan ku yar fahmay aan garanayo waa xamar meelaan soo marmaray iska jirta waa la soo qaxay dhulka waa laga yimid dagaalkii baa dhacay 64 Soomaaliya ila akhiri الوالد رحمة الله عليه وسردي أنا هاي الكاس أنا بيت مرة أنك قرني وبولو بردميل ليلا أنو دقني باجرتي أو هالكا أنكو ير عقليستي أو وحان كلا قرني وبولو بردأت بانو قرنيا مركي دنبي حمر بانا دو كوري كورلين كي وهالكا سيو أها رحمة الله عليه الوالد مسجد كا وأساسي أو شعب رزاق خشي كيني مسجد كا إلى يومنا هذا مقع الشيخ علي الشوفي والليلة سووا مؤقري تاسوا دي شيء هذا وحورنجري هذا مسجد القرآن مسجد القرآن الكريم بالليلة كاسو بحيي كاسو نكون من تدي جري لكن ولا قد إلهي بو بحي مركز دنبه هذا هو حبيس كان قتال حمر بوستجو شعل شوفي جيش شعل شوفي هذا الكلام ومن الله عز وجل أرنت أو شوفي اللي أمك عابي شيخ كليل لكن مركلان تاريخ الشيخ أنك شيخين إلى زوج قلنتونا أنا مرك هالكاسان أنا يل أيوه حلقة والدك وفريسي وحن حسوستا يرى وحن كقبو صلاة ده مركل اللي قالوا إنه أنتوا سوق حيو وصفك هرتي شيء فريسين جري وحال كقياسة يا طبعا كيرا لأن تضبوات اللي سام شيخنا آدم وسنة وجود ذلك جري مركا أنا وصلت يعني هذا حلقتي دعوتي خير كميشة كسعودي الحمد لله أرنت أخونا الشيخ عبد الرزاق وتلمامي أي إلهي وافجي قرآن كاسان يعني لين ما يكون ليبة ندبلها مدينة ولا جت وكنجري 6 جزء تهجد لكن سومالي يكون أوجين لأن إسكجنا ولا جيابا لكن مسجد عام هو اللي شوي ماذا وحقوه لي حتى زمن الوالد ما سدح ذا جزء تهجد كلمة وكنجري وضدكم ما بيقول لكن جزء كتراويح أولي كمو سنتجين إلى هذا نسيدي بان إن شاء الله أن كنت أجنهي مركا محن كانوا كل شيء يا شيخ صدح شيء تجارب الحياة يكبرتي علمتني الحياة والله ما بكره حصوصا كرو تجارب الحياة يعني دي مر أردني بقى صوم مري ومسر جوجي وحياة بدن أي صوم مرين وإلهي يوافجي خير بدن تجارب تسوى صوم مري مركي دنبئ أنو رحق لي دعودي يؤرنتي صومالي أنا مرب بدن وأنا صوم مرين يعني أنا سوما شيء كرا يعني هذا أنا بالنسبة لي دعوتها أنت أنكو جرودي وده مرينا ندي وحياة فرب بدن وأنا صوم مرين لكن وقتك أسكت ديرانا يهدي ما ركتي مركلا إسكت نقدون تا وحي وعبس بدنا مال الروا ها كوكو يابك بدنا كوكو عبس بدنا ولا هرت عبس هرت عيب ما هو النبي الله موسى بإلهي خوف بقوت ماري ولا مدبرا بوير سوما لا تخافنا إلهي واير ولا كعبس هذا وعبس ويسكجرته لكن هبين بكي أي قلد إي مادين أنا سستلو رنجري أو أنت قال الله سودك أنتو كدعي وضع عتاني حمر سجال سديتني سجال كبا هيد مالين خميسة ومالين تي عيد هيد عيد بقى هيد عيد الأضحى بقى هيد عيد حج كي هيد جمعة نوائي كوحكتي يا وها دولة قررتي أو قرار قادي إن لنا حلو علماء ما لها سون أدو حقي هذا جرتي أنا حقي بريهاس هذا الكيك وسكير بدنا ومحمد هذه يرجع جراعي جري المهم وحكى لنا ما هينا وحن كول والسنين سومالي بدنو أو كريستن شيعتي بانو أرجني أو بهالكاحرتي أو إلا إن إنفر بدنو إن يوروب كتكتر دوني شيء بس كتير كدو هذا مساجدنا كو أرجني حقا بركان يوروب تجني
laakiin markaa hore khawf iyo cabsi waxaan nidhaa ma dadkani la gaaleeyaaba arrintaasaan marka aad uga hadalay siday u dhacdayba nin oo kaniisadda madax ka ahaa baa la dilay ilaahay baa nooga saray majmacana waan ka markhaati gelinaya shaqo kumaanaan lahayn mana aanaan amrin mana aanaan ogeyn tii baa dhacday cid ka dambaysa allaa og adigu sababtaasaa laga dhigtay aroortii bay noo yimaadeen aniga mixraabkan oo fadhiyay ii yimaadeen saddex nin oo hadda aan sheegayna laga yaabo haddii qaarkood joogaan shahal meelahaas in dhibaato ayaan ma sheegayo magacooda meesha la igu yimid waxa la yiri dawladdu waxay rabtaa odayaashu inay maanta kula shiraano qalalaasa yar jiro waxa weeyaan qalalalaas awgeed in wixii khudbada aad sheegi lahayd lagala tashada maanta lagugu yimid inakeen waxaan hadday xarig ay tahay ii sheega aan alaabteeda soo qaatay ma jirtaa leer waxaas xaajalilah xarigaad sheegaysa waa maxay war waxaas ma jiray sheekhna keen baabuurka ay Soomaalida ay oran xajiyad oran jireen oo biikaabta ahaa ayay wateen kii baa la ishaaray meeshii baan tanay sheekadiiba mar alla markay meeshii geliyeen way isbedeshay nin burus leeyahay burus ma aqaan haduu nool yahay haduu dhintay burus baa leeyahay nin aad u madow oo indhihiisana gaduudan yihiin buu ahaa kaasaa la ii dhiibay nimankii cadcadaa ee qaarkood iska fiicnaan qaarna wajigooda aqayna way iga tageenba burusaa la ii dhiibay burus waa i kaxeeyey qol yaroo ma garanaysaa oo bir ah horta wixii aan haysto dhan uu yidhi dhig halkaas saacadda dhig maxay dhig oo maxay sheekadii iyo qoladii ila tashan lahayd aawe maya sheeko galaa jirtee alaabtaad halkaa dhig waa nin lagu talagalo burus baa la yidhaha magaciisa masaa la yidhaha ma aha waxa oo halkaasa adigu le marka habeenka ugu khawf badnayd suu sheegaayo maalintii ku xigtoo jamcadii baa mudaaharaad dhacay sheekh cabdirasaaq waa ku jiray soo maaha waa ku jiray dadkii ku jiray maaragtay mudaaharaadka sameeyey barigaas waxyaalaha la duuduubay iyo ma jirinoo laakiin thawrada hadda carabta ay sheegaan rabiic al-arab iyo fulaan waa anaga uga horreynay waxaas oo dhan ummadii markii culimadii oo dhan sheekh ibraahim suulay sheekh ibraahim ali fulaan kalaanku hal mar la wada xiray dadkii waa kaceen laakiin masjidka markas uu ahaa ra'iis uu ahaa halkaasaa la isku urursaday adigu mudaaharaad baa dhacay dhibaataa dhacday dhiig baa dhacay insha allah intii dhimatayna allah u naxariisto laakiin ma aanaan ogeyn waa bixinay habeenkii oo dhan baa marka xabada dhacayeen dhulka qol mugdi ah oo bira ku xiran oo aan dariishad lahayn oo 18 ilaa 20 aan u malaynaya lagu caburiyay ayaa waxaa naga ag furantay rasaas xoog badan marka shakiba ma soo gelin in ay maadaama ay xaalad marayso in lana laynayo taqriiban habeenkaas walwal baa iska yar jiray hadday taa nagu filantahay waa ka almuhim ilaahay subxaanahu wa tacaala marxalo ahayd min almaraaxil wax badan aan ka faa'iidaysanay waxyaalahan ka faa'iidaystay waxaa ka mid ahaa nin baa la soo xidhay habeen ma la soo xidhay ninka marka qolkaygaa la keenay waa mar dambe ninkii uu seexday annana waa seexanay quraan buu bilaabay wuu hurdaa suuratu albaqara uu akhriyey aali cimraan buu akhriyey suuratu annisaa buu akhriyey marka uu marayo إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما تنور واي تلبلنا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا واي ثم هل حتى مركم مرة يحيي هرواي إسك إلالي واسي سعدا وهردا نكي وهردا أنا وسجد ذا والله يا بنهاي صبحي بان وحن ويدي نكي ورنيه القرآن كحالة أخرينيسي وأنا هردي شيء وحجران والله شغلتكم أم بأيرابوي القرآن كمركات ساعات أخر سابا لقولي لكن حافظ بوها سيدي سكل حافظ بوها لكن وحول أرنتها والله إن أنا كورهيني أنا وأركوانين هرداء يعني وحياله عجائب تلها أي سجن يقصوا مري أي كم ذا هيد وكلنا واجرة لك أختي هذا لما هي توفيقنا الله نوفج السلام عليكم